On Cable TV. Soomaali Israaciil ha midowdo ha baraado ha carowdo garoonka ay ka hadlaan diyaaradu kana duulaan waxaas galabta si diir loogu soo dhaweeyay gudoomiyaha ururka Onalif Cabdiraxmaan Sheekh Maadi ana soo dhaweynta ka qayb galay mas'uuliyiin sare oo ka tirsan ururka Onalif boqolaal kamid ah shacabka ku nool magaalada soo dhaweyn kadib waxa barxadda hore ee garoonka diyaaradaha ee Garaadwaal ee magaalada Jigjiga kula hadlay boqolaal kamid ah shacabka ku nool magaalada Jigjiga Cabdiraxmaan Sheekh Maadi gudoomiyaha ururka Onalif oo sheegay in labadii bilood ee ugu dambeysay uu safar shaqo ugu maqnaa wadanka Kenya iyo Itoobiya sare isla markaana uu la kulmay siyaasiyiinta Geeska Afrika dhammaan waan salaamayaa sanad socoteen waxaan u kacay anigu saan dheer oo ku maqnaa muddo 2 bilood ah waxa way aad sababa iyo ka shishay Kenya tagay siyaasiyiinta Geeska Afrika soo arkay aad sabab ku soo noqday dhammaan xoogagga Itoobiya maanta ka jira macnaha leh xisbi ha noqdo dowlad ha noqdo aqoon-yahan ha noqdo ururo kale ha noqdaan diblomaasiyiinta adduunka tima ha noqoto muddo 2 bilood waxaan darseeyey ummadda Soomaaliyeed xaggeedan ugu jirta xaggee saldhigaynaa Itoobiya isbedel baa ka socda ballaaran markaan cid walba la gargortana leeshiin waxaan goosanay meesha ay ka tashay shacabka Soomaaliyeed uu ka dhow yahay isleenahay inaan annaguna salka saarno annaga haddaan jooxanahay waxaan aaminsanahay ummad Soomaaliyeed oo mida oo dhulkeeda iskale oo dhulka ayadu ka amxo boqorro saadaka khayraadkiisa dhaqaalihiisa maamulkiisa ciidankiisa amniga كل أي ويليهين وأي سيطان تودا مودان أي وطليان بدي أول كلام وإحنا ولا نفسكر لا ولا نفصله مركع عنا والله صوتان شري وحاسة عنه هالشيس أنا قال لي حقوقك قومي ذا الدنيا إن تدكو اسمها مولان هاي هذا كتشدان وتدكو حقوق ذا يعني شكي قليم ساسا وحلقوا ومن نغني اسمها هاي السيقا قومي ذا دونيا إن قومية ضربايا إذا اسمها مشا فدرال كذا قاعد كويسته عيانا كتشته وحانو عنا تاجنا هاي دفاع دلك خيرات كيسة يوعيسة شعب كان بغاليسة أيضا كيسة يدني مديسة وانسوينا وحمانت فرحة ضوء هالك الجوكتا إذا مديش أنا يدك كان لو تاج لو بس أنا يرالنا يان وانحوجينا أيضا كان عسلنا حوجينا وحبر شلنا حوجينا وعن حوجينا كبدحيغا وعن حوجينا odayaashada sharaf u yeelayna dalka annaga askale annaga maamulanayna madaxweynaha u doornayna shacabka dooran dadka xukuumadda askale ciidanka ilaalinaya ayuu noqonaya dadyowa kale macaamil iyo walaalnimo naga dhaxaysa dadka Soomaaliyeed deegaanka degan waa ayaga saldhig u ah Geeska Afrika nabadeeda walaaltinimadeeda Itoobiyaanteeda kalena annaga inoo baahan tahay walaalaha Soomaaliyeed inoo baahan yihiin Djibouti waa noo baahan Kenya noo baahan Suudaan baa noo baahan waxaa noo baahan meel walba marka qiimaha aan lahayn ma soo celinaynaa sharaftii ummadda Soomaaliyeed halka ay ku lahayd ee dadnimadeeda ahayd waan soo celinaynaa biidnillaahi kariim wasaad la socotaan Itoobiya waxay isu bedelaysaa dal dimuqraadiya doorashaa loo socdaa saad la socotaan annaga dalkeenna muddo badan buu dagaal ku jiray maanta waxaa nalagu ammaanayaa guud ahaan in dalka ugu nabadgelyo badan uu yahay Itoobiya maanta dalkeena oo dadkii ay walaaloobeen oo midaysan yihiin dawladda deegaanka haddaan noqono haddaan xisbiya siyaasiga noqono haddaan ciidanka amniga sharafta noqono haddaan shacabka qiimaha badan haddaan noqono dhammaanteen maanta sharaf weyn baa adduunka laga hayaa waa meelaha lagu taamay in maalgelin lagu sameeyo la dhiso la hormariyo marka taana waxaa keenay dadaalkii aan wada galnay kulligeen oo idin waxaan aad ugu mahadinayaa oo maanta runtii aan u mahadinayaa ciidamada amniga janaal maxamed axmed tuur iyo amnigiisa iyo ciidanka federaalka national ilaalinaya sidoo kale waxaan mahadinayaa xubnaha jooxay soo baxay waxaan mahadinayaa Soomaalida Jigjiga degan intaas kadib waxa loo soo galbiyay xarunta dawlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga Cabdiraxmaan Buux telefishinka On Cable garoonka diyaaradaha ee magaalada Jigjiga adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawshid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida